warre Kalamaan waxa la yiri ummadan dastuur lagu dhaqiyo xeer dabaqa haynin oo diinta biyo sharciga uga daliil qaadan ummadan dantoodana aqoon dawna ku heshiinin ummadan dalkoodiya jeclaan dawladnimadooda ummadan dagaal buuxin iyo dhaafin dirirtooda ummadan shisheeyaha dawladda facu lahaanin ummadan waxay diidaysiya dooni la aqoonin sida dooqa Soomaalida ay damac wareertaaye markaasay dadnimo seeg noqdaan dawladnimadaaye war dadkana way dhagaxoobeenaha ku daaliniyow dawladnimo loo dhan yahay in loo dhisay rabaan dawladnimo loo dhan yahay in loo dhisay rabaan warmadayo waxaad ka tagtay dawladnimo joog daacadii mahungowde warnabayaanu waxaan is idhi daacadii dagaaladii sokeeyay ku dhimad walaayiga damboylaanba dabshay hursadoo heeleta war cadaaladii daacadda ka hor miyay dhimatay horta mise kadib aryaadhaha midnimo kollay idinkaa diidayoo waa og tihiina goormay iyaduna geeriyoota war horta run iyo ballanu goormay dhinteen warniyow waxaba malmaluuq baa isku fuuqsaday war malmaluuq lahaanine waxaan aad ka hadlayseenoo dhan musuq iyo maasuqaa ku goobtay yaa musuqee maasuq kaliya xaad u eedayha qarshayo qaada maa kaaga roon aryaab badanaa araada dadkaas aad tirinaysiin aniga midna kama aqaano wargooyeegow weli sagaaro dabinkuugu dhacday miyaan lagaa xadin warnimayo markaan taariikhda Soomaalida dib u eegno markuu qarankii Soomaaliyeed qiimo dhaca gaadhay waa tii qabqabliye dagaalooga qiilka loo helay qaraxana kuwii quudan jiray dhiigga qubanaya waa tii qisaas lagu wajahay kii qul soo jaree wax aanan qarin karayn baan Soomaaliya ku qayaxayay siyaasiga qorshaha qabiran qayba kala yeeshay ee kursiga u qaylinaya iyo danaha qaaskiya haddaan qorshe wadar lagu wajiin bulshay soo la qixi maayo war xanaano musalsalka qaybtiisii labaad miya halka kula maray war 8 February lama gaarin warnimayo heshiiskii lagu ballamay waxaan u maleeyay inuu buray doorashada madaxweynuhuna 8 February dhici mayso sababtoo ah wax walba dib ay u dhaceen waxayna ahayd kowda bishan doorashada aqalka sare inay bilaabato 10ka bishaana doorashada golaha shacabka inay bilaabatay ahayd labadiiba waxba laga ma hayo marka anigu waxay la tahay dawladda waqti kordhintii loo diiday inay u bilaabo rabto warnimiya usan doorasho maan iska mihnoytan madawiin leefadaas anigu waa ku siin roogahe war ha fadhida miyaa farow horta labada qale baarlamaanka hadii waqtigu ka dhamaado doorashana aan la qaban xildhibaano labaad la dooran dawladda ayaa muddada u kordhinaya war taasna wareer ma leeyahay falkiisaas waaniyada toladaas war dastuurka Soomaaliya hadda dib u eegtaan war dastuurkee ma kii 60kii mise kan qabyada war ka doontaba ka dhigo kuraastu inay banaanaato sharci maaha haddaan wax la soo dooran kuwii hore loo doortay baa fadhinaya war dastuurka dhinaca aad ka fiirisay ma aad dhinac kale ka eegto waxa ku qoran mandate-kii madaxda la doortay hadii uu dhamaado inay shacabka kamid yihiin filin dhamaade buliyati ha u goosan miyay mare marka annaga iyo madaxdu ma meel bal shaah ku wada cabi doonaa yaa qowdhano xabata ka biqan mar adiga iyo mahdi miis shaah waa ku wada cabi doontaan war waqtigaad ka sheekaysay malaa'intii cadaaladdu noolayd bay ahayd arooda hadiiba cadaaladii dhimatay maxaa noo daalinaysiin he gooyow cadaaladda ma dhimanin ee dhaabac way dhaabac arooyaa dhaabacayne ad meel kale ha raadinin lawa good la yaasha dhaabacay waxa dhageysi jiri dhiwatada jaceelku ay ku dhala rogtaayo dhaabaca baryana ala dhuwataaye ada jaceela ka warramoosa waayahan siyaasad la dhuudhuwahaaya imaade arooda waxa ma noo keenteen dhakac dhamsale ka dhaleeliyo dhac xariifo waxa ka boodi deeyaasay ka damdamow daasho baxa ka boodi war maanta waxaa la yidhi golaha wasiiradu shir degdegay u ballansanaayeen haddana waa la baajiyaa la yidhi ajandaha looga hadli lahaana khamiistii sidoo kale loo baajiyaa la yidhi xantuna waxay sheegaysaa arrinka looga hadli lahaa inuu ku saabsanaa Jubbaland marka waxaan la yaabanahay goluhu waa isla golihiiye amarkii la siiyana horay ka qaadan jireen yaa lug jiidaya araan hel wal mooshiidii barabari dhalaasa baradambana baagadiya dhalaasa war qaraarka golaha wasiiradu soo saari rabeen waa kii hore Cabdiraxmaan Cabdishakuur noogu sheegay ra'iisul wasaaraha wuxuu madaxweynuhu ku cadaadinayaa in Jubbaland loo aqoonsado deegaan cadow haysto sidaa darteed aysan ka dhici karin doorashada baarlamaanku qaraar la soo saaraa maqloyna shimee macaan la soo saaraa war haalku waa nin la sugayo adna yad sugi nin lagu seexdo aseexan maqli jiri hilba sida taa haseehan haseehan soo jeedo si weyn u dhaafarnaaw
adduunyada basaasan ka danti warnimaya war ma haysiine waad ogeydeen wasiir goodax iyo maareeye in laga reebay golaha wasiirada maareeye dhagax tuurkii laga filayey mar hore uu bilaabay goodax barana inkastoo la soo daahay hadda weerarkii bilaabay war goodax xaguu ka buskiciyey arwaxa laga daaya ha lagu maayiri laha dawla maahe ma yiri yaa ma yiri goodax arwaabaha la wareerinay xaquuqdeenni meel ku sheega berga war goodax natiijada imtixaanka waa laga noqday miyuu yidhi war goodax iyo maareeye intii wasiir cawad miyay garan waayeen wasiir goodax ma yidhi labad iyo lolol inta maha joogay ficlaayeen wasiir goodax baarlamaanka argagixisi ka dhex jirta erey war xilka wasaaradda waxbarashada wareejin maaya miyuu yidhi war wasiir goodax horaan aantiya la erey war jenaraal xuud iyo ciidankiisii macawisley beledweyne waa kuwa inta soo galay kadib odayaashu dib u baxa dhaheen ceelgaalna uu ku laabtay maanta mar kaluu beledweyne yimid aa la yidhi si uu ula kulmo wasiirka arrimaha gudaha mowqafkiisuna waa cad yahay oo hirshabeelle beledweynaha ka baxduu taagan yahay jenaraal huud iyo najabhadiisba odayaalka dhagankii wasiirka arrimaha gudaha beledweynaha halshay oo laku fade ijiidiyoonay aan ku jiido gacma daarisa warwarkaa naga dhex gelinine wasiir goodax wuxuu yidhi hirshabeelle siday wax uga socdaan lama aqbalayo dadka kacdoonka beledweyne ka wada xaqay ku socdaanuu yidhi cali guudlaawe in beledweyne lagu calayma saarana bahdil waayuu yidhi wax badanoo annaga aanan sheegi karinna ugaaska iyo cali guudlaawe uu ka yidhi aryaadhaha cabdalla hiraabe murtidhuux oo warka goodax dhegaysta markuu cali guudlaawe eedayhaya isaguna wuxuu yidhi rarkaan haddaad ra'afaad la'aan la roogsaataan ra'a ku aqaan rarkaan haddaad ra'afaad la'aan la roogsaataan ra'a ku aqaan haye wardooda waa badiseenoo doc kalaad u kacdeene horta doorashadii ma la daayay warkeed ama waa lay dooran ama daadku iqaadiye araa waxaan maqli jirin in daad qaadi xunbu cuskay war nin gabyey wuxuu yidhi doonyuhu mar bay caariidaan lagu dawaafaa mar bay diyaaradi dhacdaa ruushku soo diraye dayax qariyahan waday hadduu iga dabayl raacay markab degayba waa laga samraye tanina haydayso weliba dheegi jiray ha imisaa dabeeshii doonyuhu la cariyeen meedkood dib loo arag warmadee waa isku tahriibinhe aryaadhaha imisaanka daaniri imisaanka daaniri imisayna daagayeen aan maqli jira warwalla weynay ilaah baa deeq baxshee doorashada caashaq ka daaya war anigu waxaan maqli jiray dabayluhu way sitaan duufaannadu ima dhigaan badweyn bay dooniduna ila sii durkaysaa inaad eroman berigaa tahriibtaad xasuusata war wayba sii sheegay tashiirinka duurka roog ukuntiis madii lahagaada doorada idroogti lankadara ukuntii habogsirta unagaas tashiirinka ee hooba baala weeldhada horey ku buubee duurshay leenbae reed way leeray maagan dooda sangmaa tashiirin doorma nagdaw tarasho waraabe rabaayad ma naqdaan maqli jiree diirankuna ma lamida aniguna waxaa maqli jiray waxaan ahay dabayliyo dugsi kiila duunu aro waxaad ka tagdi dayaxiyo cadceedan ku tagaa dalxiiso kama daalo socodkee war guddoomiye hore ee baarlamaanka brofesor jawaari wuxuu yidhi min fadlakum nadaam miyuu yidhi warba dib baa loo soo celiyey sida hooyo ilmaheeda ugu naxdo ayaan waddanka ugu naxaya miyuu yidhi weli waayo arag looma baahan miyuu yidhi dawladino idinka dambeenu mar hor isiin sheegi erey weyse siyaasadeed soomaalida uma dhowrna miyuu yidhi wardhigay cabdi xaashe culayska ha laga qaada miyuu yidhi allagabootii facay waaye miyaa siri war eleen hoobadeesha adarkadayaw iyo hoobadeeshoona meel eber eladayaw iyo array jawaari war ishaa cale ninkii daya digniin waa ugu filantay miyuu yidhi warwarka waad iga dhex gasheena brofesor jawaari wuxuu yidhi waagii hore waxaan maqli jiray danta guud ayay ku jirtaa danta gaarka ah haddase waxaa socota dantayda gaarka ah waa inaan ka dhex arkaa danta guud aryaadhaha jawaari warkaas ma waxuu ka wadaa waxaa diyaaraa dantii guud dulminaa laygu daayima waxaa diyaaraa dantii guud dulminaa laygu daayima urur ma haysaana golaha guurtida somalilan shalay dood culus baa ka dhex dhacday haye soomaaliya aan la midowna iyo la midoobndhimay ku doodeen guurowkaana badadayna gaarno ereena wakhtiga waannu kororsanay miyay dhaheen warwarka iga dhex gelinee dooddu waxay ku saabsanayd siyaasadda arrimaha dibadda somalilan kadibna waxaa istaagay xildhibaan indha la yidhaah
yidhaahdo wuxuuna yidhi dalkaynu walaala ahayn ee jaarka ahayn waad ogtihiinoo baryahan waa qasan yahay halkaa markuu marayo ayaa guddoomiyaha guurtidu yidhi jooji wuxuu yidhi arrimaha dabadday ka mid tahay guddoomiye waa wadayaayay dhegayso wuxuu yidhi adeerow hadalkaagaasi iyuu badna gelin kadibna wuxuu yidhi big brother abiy axmed waxaana lagu celiyey jooji kadibna wuxuu yidhi wannaga hoo mikrofoonka meeshu waa malcaamade wargolii guurtidu dugsi sare baan kabiir ka yahay weeyaan miyuu yidhi warwar ma haysiina dood culus oo dhex martay rag culus oo ku saabsaneed xidhiirka kenya ee soomaaliya xildhibaan sakariya wuxuu yidhi kenya waa cadowga soomaaliya waa cadow soo jireena dadka soomaaliyeed ee xasuuqdaa mana la aqbali karo xildhibaan kaloo soomaali kenyaatiyo la doodayana wuxuu yidhi etoobiyana ka warran sakariya meeqay xasuuqday doorashadii madaxweyne farmaajo lagu doortay xildhibaan sakariya wuxuu yidhi etoobiya waa cadow soo jireena inta xiriir lanana maanta in laga fiirsaday mudan tahay marka ayaantan gadgadoonku waa badan yahay yaa xaadula yaabee geelna waa galgashaa ragna waa gedistaa horaa loo yidhi wax gadgadii waxa kula gudoomeenna horaa loo yidhi gaariga qaad gedislay jecel gedayso iigaayaa tahaye gacalkaama rabee gooso aan maqli jira war brofesor cabdi ismaaciil samataro doodaas ka qaybgelaya wuxuu yidhi shalay madaxweyne farmaajo xisbigiisa nabadii nool nairobiya lagu aasaasay oo kaambeynkiisa uu ka soo bilaabay marka shalay miyaa kenya cadow ahayd mase maanta ay cadow noqotay war soomaalida mayba dhagan jeeyaa lanki maalinto magaajo mahbuusa maalin lamada may waraan waxaan maqli jiray sidan waa naqaanaa sidanna waan u garannaa hadday gacan tusaan tahay sirbay cidib ku leedahay wayba leeray langada gorota ma gorot warwar maysiina ayaantan afayeenka dawladda waxaa noqday oo doodaha ku difaaca egis weriye wasiir cabdiraxmaan alcadaala waxaana doodihiisii ka mid ahaa anigoo xushmaynaya mas-uuliyiinta mucaaradka ah haddana waxaan kula talinayaa wixii ay tabanayaan inay kala hadlaan ra'iisul wasaaraha haddii aysan wax cad hayna ay naga joojiyaan buuqa adaaladu waa badilacsaday war waxaan maqli jiray allayne inteedu ku sugay aradka gaaroodi arooda wasiir dubbe maaska afdheeraadayne war dubbaba ma aamusnee labadooda ninba markiisuu tuurtaa wasiir dubbe war maraykanku wuxuu yidhi soomaaliya waa kala baxaya waxa ciidan iga jooga war somalilan waxay tidhi arrinkaa waan soo dhowaynaynaa sababtoo ah markii horeba malmaluuq baa loo keenay midowda musharaxiintuna waxay dhaheen siyaasad xumada dawladda go'aankaas ka dambeeyey war musharaxiinta waxay dhaheen dhaqaale boobaa bilowday dawladduna waxay bixinaysaa shatiyadii shidaalka arooda war ma haysiinay guddigii doorashooyinka oo dawladda magacaawday guddoomiye iyo ku-xigeen ay doorteen war cabdinuur maxamed axmed miyaa guddoomiye u noqday aroo maxamed xasanaa la yidhaahdaa warwar ma haysaana musharaxiintii waxay soo saareen guddiga badbaadada doorashada guddi loogu magac daray marka laba guddi haddii layska horgeeyo maxaa ka soo bixi doona guddoomiyaha ka soo baxaayo war laba guddi haddaa aragtiin laba madaxweynaha soo socota aryaadhaha guddigiinna iyo guddoomiyihiinnan iyo waa ku wareere anigu waxaan dhihi lahay tagoog yaa qoobtaan beestaafo tacadii baadaanaan tuhma tagoog yaa qoobtaan beestaafo tacadii baadaanaan tuhma haye waryaa mal waa kuu laaban maxay tahay waxaad tuhmaysaa maya lamadaa ii laaban war laba guddi haddaa aragtiin laba madaxweynaha soo socota war malmaluuqiinima waxa ku bedesheen islaxyaac war intay goori goortahay xaaladda halsaan laga bedelo war lug hor lug damboobajabaasalaari waryaa barbarkii fiicanaan raacayna annagu meeli kookaga badada wayla rees hoortoos booda badadaas meeli madaxweynaha badon mushkilad isla galay laba madaxweyne mid afoorteen ba barbarkay ka baxdaba waa bakay la qaalen war qaranka loo turo warkaan niga dahay dad runtuu sheega war yaa abi iyo huru waa isku mid war dad soo kala baydhaaniyo qarannimo kii marinay aroo dhagta ku dhuf lugtaa ka jabe qarannimo warkii marinay dhow war adaga dilin war marji kii marinay dhow qarannimo haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar calaamadda gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dheh oo sii faafiyo lana wadaag saaxiibada haddii aad faalo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi